نقيا ganacsatada gobolka Gabiley oo maanta isu imaadkan iyo casuumadan sharafta leh ku maamusay barasaabka gobolka dadka gobolka Gabiley oo gobolnimadii ugu yaqaanay dadkan weelkii saaxiibada nahay ee gobolka Intiga aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinayaa aad iyo aad baan ganacsatada ugu amaanayaa doorka iyo casuumada ay u sameeyeen dhammaan halbowlihii gobolka Gabiley laskugu wada keenay maanta halkan ay ku dhamaayeen xaasuusiga dowladda waxaan soo dhawow gudoomiye oo kula shaqeynaa anigoo ku hadlaya afka dhashii mujaahidiinta dhaqankii caadada aynu lahayn inay casuumaan soo dhaweeyaan gudoomiyaha gobolka Gabiley aad baan ugu mahadnaqanaa sababtoo ah soo qayb gasheen xafladda maamuuska ee qabada aan ku maamusay barasaabka cusub ee gobolka Gabiley hadafkeedu waxa weeyaan nolosha iyo qabad insha Allah guud aan rajaynayaa inuu ku hadlay afka ururka samakaal gudoomiyaha inuu kala leeyahay magacaabashada qolis gudoomiyaha abaaraha waxaan leeyahay in abaarta loo soo jeediyo hawsha loo magacaabo ilaahay nagu astro waxaan leeyahay ilaahay lagu soo jeediyo abaarta caamka hadhow baynu doonayna nagu dhacday waxaan leeyahay ilaahay oo ku darxeel qaba oo caama nagu soo gudbi waxaan leeyahay sababta kan dhameeyay cusubina soo joogteen oo mahadsantiin waxaan idinku soo dhaweynaynaa gobolka Gabiley oo aad iyo aad u garanayso gudoomiye dadkan halkan joogan waa ciyaantii gobolka wixii aad talo iyo tusaale uga baahateen waanu kula garab joognaa hadii la yiraahdo aad iyo aadna waad mahadsantahay sharaftan ka soo qoysan waxayna aad mahadsantiin casuumada sameeyay munaasabada soo dhaweynta barasaabka cusub ee gobolka Gabiley barasaabdood waxaan leeyahay soo dhawow gobolka Gabiley anigoo kamid ah dhalinyarada aqoonyahanka gobolka Gabiley waxaan ku faraxsanahay inaan kugu soo dhaweynay gobolka cagaarnaha gobolka beeraha iyo khayraadka waxaan rajaynayaa inaad mustaqbal wanaagsan iyo horumar aad ka samayn doonto gobolka bismillaah salaatu wasalaamu alayhi wasallam maanta halkan xaflad aad u qiimo badan baa ka dhacday oo ay hormuud ka yihiin guddida ganacsatada gobolka waana labeentii dhaqdhaqaaqa ganacsiga gobolka loona baahan yahay inay meelo badan oo baahiyaa ay bogsiyaan ama daboolaan isku tashigu aad buu muhiim u yahay gobolka abaaraha ka jira gacantii lagu baxayay weeye ganacsatadu marka kulley arrimahaasoo kale wadatashigaasay ku fiican yihiin arrimaha khatarta ah ee bulshada dhaawacayna in la abbaaro oo la daweeyana waa muhiim marka kulankan iyo kulano kaloo aan samaynaana aad bay muhiim yihiin waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ganacsatada gobolka Gabiley ee gartay sidii dhaqankii iyo caadada aynu lahayn inay casuumaan soo dhaweeyaan gudoomiyaha gobolka Gabiley oo gobolka ku cusub oo dhawaan loo soo magacaabay marka mas'uul meel loo soo magacaabo ee gobol cusub yimaado dhaqankii soo jireenka ay gobonnimadeena ka mid tahay in cidda markaa joogta ay casuunto martiqaad u fidiso maamuusto oo soo dhaweyso marka qada sharaftan lagu maamusay gudoomiyaha gobolka iyo waftigiisuna taas unbay ka turjumaysaa maanta marka guud ahaan ganacsada Gabiley waan u mahadcelinaynaa intii farxad gaar ah inoo tahay ka soo qayb galnay casuumadan maanta kan lagu sameeyay barasaabka gobolka ay ganacsatada iyo xafar gobolka ku sameeyay intii dowladda waxaan soo dhawow gudoomiye oo kula shaqeynaa anigoo ku hadlaya afka dhashii mujaahidiinta maadaama tahay nin mujaahiga weliba Gabiley ka soo dagaalama waxaan diyaar u nahay kula shaqeyno ku garab istaagno ka galo ahaan aanu si weyn kula shaqeynaa hadii jecelahay mahadceliyo ganacsatada gobolka Gabiley sooriyada u sameeyeen barasaabkeena aad iyo aad baan ku mahadcelinayaa waa sharaf iyo milgo inay ku soo dhaweeyaan gobolkiisii oo runtii isagoo uu yahay reer Gabiley aad iyo aad baan ku amaanayaa ganacsataduna waa gudbaxaadka gobolka Gabiley runtii aad iyo aad uga qayb qaataan horumarka runtii aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa inay barasaabkooda casuumaan sheekaystaan is-xog wareystaan oo ka wada hadlaan arrimaha gobolka ka jirana runtii waa mas'uuliyad iyo xilkasnimo waxaan jeclahay kulan kala jiri doona oo arrimaha lagaga sheekaysan doono sidii looga qayb qaadan lahaa gurmadka abaaraha jira arrimaha kale horumarka bulshada dhexdooda marka aad iyo aad baan ganacsatada ugu amaanayaa doorka iyo casuumada ay u sameeyeen kulankani runtii kulan aad u qiimo badan buu ahaa oo dhammaan halbowlihii gobolka Gabiley laskugu wada keenay maanta halkan ay ku dhamaayeen taasoo runtii muujinaysa isku xidhnaanta iyo dhinac wada socodka iyo horumarka gobolka in loo midoobo arrintaa waan uga mahadcelinaynaa tiimka soo abaabulay ganacsatada gobolka sidoo kale waxaan aad ugu mahadnaqaynaa barasaabka gobolka oo isaguna runtii soo casuumay mas'uuliyiinta inta ugu badan waxaan rajaynaynaa insha Allah kulamada noocan oo kale in la sii xoojiyo
horumarka gobolka in dhinac looga soo wada jeesto taasaa ugu noqonayaa inaynu meel u wada jeedsano horumarkiisa ka wada shaqeyno nin walba intuu ku turbiid garayn karo uu runtii keeno isku runtii aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa xarimo sharafeedkan ay sameeyeen ganacsatada gobolka gabiley ee maanta halkan kagala soo qayb gallay aad iyo aad ba u mahadsantii baan leenahay runtii waa gobonimadii lagu yaqaanay dadka gobolka gabiley waa gobonimadii lagu yaqaanay dadkaan wehelkiiyo saaxiibada nahay ee gobolkan dega aad iyo aad baan idinkaga mahad celinayaa muddo waan joogay sidaa ula shaqayseen quruxda badan dhammaantiin mas-uuliyiin maamul maxay tahay culamo odaal dhalinyaro haween dhammaantiin aad iyo aad baan idinku mahad celinaya sida runtii gobolkani waa gobol dadkiisu yihiin dad faham badan dad wax badan garta dad maxay tahay hoos wada hadla dad aan qiiladoodu badnayn aad iyo aad baan idinkaga mahad celinaya saakana aad baan ugu faraxsanahay inuu siikii wasaaradda qorshayntu iyo agaasimiin guud ee wasaaradda dibadejinta heer qaran inagala soo qayb galeen innaguna heer gobol iyo heer degmadu aynu ku leenahay taasi waxay muujinaysaa midnimada iyo wada socodka iyo iskaashiga dadka gobolka innagoo dhammaanteen ma haysaysana waxaan halkan baa uga dirayaa dhammaan dadka gobolka gabiley maanta waxaynu ku jiraa xilli jiiraala abaar daran baa jirta abaarta kormeer fiican baanu soo samaynay ummaddana waanu soo marnay maantana halkan waxay nala jooga ganacsatadeennii iyo aqoon-yahankii iyo mas-uuliyiintii xukuumadda laamaheeda kala duwan marka dhammaan waxaan baa ugu dirayaa dadka gobolka inaynu isku tashanno inaynu dadkeenna ehelkaa baahan oo biyolaanta iyo baadlaanta iyo wixii dadku cuni lahaaba u baahan inaynu gumud u samayno shalay bishu hayada 24 waxaana magacawnay guddidii gobolka ee abaaraha ka shaqayn lahayd insha allahu iyagana kulan baan isugu yeeri doonaa kulanka ugu horreeya baan u qaban doonaa waxaan leeyahay dhammaan la isbarbar taago ha lala shaqeeyo ha la soo dhoweeyo waxaan marka hore salaamayaa barasanka gobolka gabiley oo aan leeyahay hambal iyo mar labaad waxaa kaloo iyagana aan u mahadnaqayaa ganacsatada gobolka gabiley oo maanta isu imaatinkan iyo casuumadan sharafta leh ku maamusay barasaabka gobolka oo aan uga mahad celinaya aan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin annaguna aanu kala soo qayb gallay sharaf iyo karaama ayay u tahay gobolka inay mar walba soo dhoweeyaan gudoomiyaha ama barasaabka gobolka oo ay la shaqeeyaan u muujiyaan taageero iyo inay la barbar taagan mar walba wixii horumar ay gobolka u baahan yahay aad baan runtii ugu mahadnaqayaa waxaan leeyahay dhammaan ganacsatada gobolka aad bay ugu mahadsantihiin sharaf iyo karaamaan idinku haynaa waa roolkii aad lahaydeen aad ka soo baxdeen annaguna mar labaad iyo mar saddexaadba waanu idinku barbar taagannahay wada shaqaynta iyo wixii aad uga baahataan xukuumadda ganacsata ahaan diyaar baa laydin yahay aadna waa u mahadsantihiin